بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. halkan waa Sacdiyo. waxaan samaysanayaa Ilaahay hanoo kaalmeeyo ma sha Allah tabaarak. waxaan rabaa in aan quraac samaysto walaalayaal ninkoo raalli ah. mushaalidii horta waa karsaday laakiin hadda waxaan isku dardarsanahayaa oo shiidanahayaa tarwaaf iyo abla granate soo ma taqaaniin ayaan isku shiidanahayaa. waa kaas maxaa dhahdeen lagama sheekayn karo dhiigaaga dhan wuxuu noqonayaa nadiif. wallaahi awal korkayga horogaa saarnaan jirtay been inii sheegi mahayo. ilaahay subxaanahu watacaala waddankan diinka baran maysid laakiin waxaad ka baranaysaa maasha allah tabaarak. Sweden allah soo hanuuniyo, allah soo muslimiyo. waxaan aaminsanahay waa dalka dal adduunka ugu fiican. saasoo ay tahay diinta islaamka aad bay u soo galaan inkastoo annagana aan iska khayraysanahay. banaanka u baxahayaa quraacdayda markaan samaysto. faanteen gurigeena waa guri aakhiro, gurigaygaan joogaa. ilaahay subxaana watacaala hanoo kaalmeeyo. barwaaqaa lagu jira laakiin intee lagu jiraayo waa midaan lagu waaraynin. saasaan uga baxsho diirka. liintaas cad baan jarahayaa, kan haaf baan ku darsanayaa. waa taqaaniin waa honqor. kanna muxuu yahay? waa tufaax cad baan ku darsanayaa. reer muxuu ahaaye baarbaarna xabadaasaan soo qaatay waa ku wada darsaday. halkaana kuu soo hartay. maxaa halkaan ku jira? waa beetroofkii weeye. steamkaasuu ku bislaanahayaa. jaa hadda wuu ii bislaaday. ka qaadahayaa. dad baa ceeriinka ku shiita laakiin aniga may ceeriinkuma shiidan karo. dadku waa kala waxa weeye qof walbaba dooq buu leeyahay saad u ogtihiin. wadii raacinahayaa si aan u diiro. halkaasaan dhigahayaa maasha allah tabaarak. waa diirahayaa oo maxaan ku diirahayaa waa taqaaniin. ilaahay khayr hayna siiyo. kanaan ku diirahayaa. liintaas cad baan ku darahayaa. halihii kale waa ina tusay. xaggana maxaa ku jiray? abal garanaankii iyo intaasaan isku shiidahayaa haddii ilaahay idmo. faanteen ka waa dhaqahayaa. laga dhaqahayo male. markii hore ahayd inaan dhaqo laakiin dhib ma laha. waa shiidahayaa hadda haddii ilaahay idmo. kaas soo ma jeedin walaalayaal. intaas ayaan isku shiidahayaa haddii ilaahay idmo. waxaan ku gurahayaa makiinadda. mirahan miro ka yar baa lasoo gataa. gabadha guriga degan baa iskale laakiin anikaygii waa xeraysan yahay. mid yar oo kan 2 meelood markii loo dhigo meela ayaa jira. kan haye ma jeediin walaalayaal. ilaahay khayr hayna siiyo. haddaan isku dardarahayaa wixii oo dhan. fiirsada halahaas oo kuma shuban halkaas. kana arka aa fiirsan kartiin saan iskugu dardarahayo.
saan baan leeyahay kan isku dardaro ayaan tusahayaa haddii ilaahay idmo maasha allah si fiican buu iigu bislaaday geedkii lagu dhejinayaana soo gadan waa is hagaajinayaa adduun baan isku dubaridahayaa waxaan kaga sheekaynahayaa intaan hadda quraacda isku duduwanahayo magaaladan hadda Stockholm wiil baa lagu dilay Soomaaliyeed waan eedo u ahay in Cali Bariis ilaahay ha u naxariisto Soomaalidu waxay noqotay xoolihii la kawaaninayo meel kastaba barbaa waxay iiga sheekaysay hadda ka hor Mascuud la yiraahdo waa la waayay oo dadkii galay bay noqotay maxaa la yiraahdaa waxay gashay kasoo ka jaray gabadhaas waa la waayay waxay iiga sheekaysay hadda ka hor in Suudaan lagu afduubtay iyagoo 10 gabdhood oo la iska haysan jiray niman aan guursan marka waxa weeye waliba iyadoo balaayadan waa mar hore 8-meeyadii bay waxaanu bilowdeen hadda u maleynaysan inay bilowdeen Mascuud gabadhii waxay ahayd ururka dige markan noqotay oo xamarka aasay qolaa u tashatay kaasi laakiin wuu iska imaan doonaaye dad badan baa la farsameeyay laakiin hadda farsamay intee soconaysaa meeshaan waxa weeye hubba ilaahay nasiib waa aragteen milyuun xaaladda gabadhaas waxay iiga sheekaysay nin ambaashatoor ah in uu xaraystay bal ka waran hadda waa qunsul dhan nin ambaashatoor dhana iska haystay markii dambe waxay tiri ambaashatooradu soo ma shinaan wax hemliga iimay sheegin waxaan uga sheekaynaya qofku markuu wax kuu sheego waxna waxa weeye wax sakareeda oo ku yiraahdo qof ay u sheegi taa haddaa sheegtid hadda waxa weeye dambiila tahay akhriya adduunna wax ku cafinaya malaha dambiilo weyn baa ta qof wuxuu kugu qarsaday haddaa sheegtid waxyaalo badan oo siraha jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ka dhaxeeya antii laakiin gabadha waxay noo sheegtay in guri lagu xirtay maalinkii dambe waxay tiri waxaan arkay tir darbiga ayadoo waxay tiri safaaraduhu ay shirahayaan baan arkay tiri qof Soomaaliya markaasaan u dhawaaqay walaalo ma Soomaali tahay war meesha la igu haystaa intaas oo sano ilaahayna ilmo kama siinin faanteen meesha waxay tiri waa la iga soo fakiyay noloshay hadda xamar ku nool nolol iska caadiyeed laakiin taasay ku faraxsanay dabaq hadii lagu saaro laakiin aad ku xabisan tahay nolol maahan marka Soomaalidu waa iska dhiban tahay dad loo tashadaan hadda tufaaxi baan gogoynayaa soo ma jeedin tufaaxi baan jarayaa haaf walle meeshaan waxa weeye waa tufaaxa waa qorta maxaa la dhahaa waxaa la yiraahdaa afkaando ma karo carab la ah cid aan hadalka karin baa yareera iyo oo la yiraahdo reer Maxamed war dheere faanteen waxay ogaatiin Soomaaliya dhibaatada ka jirta iyo xaaladda ay ku jirto ilaahay ha loo baryo waa u jeediin waa lagu tartamahayaa madaxdiina waxba mid walba intuu wax dhadhamiyo soo libaaxsaday maalin dhaweydan waxaan iri war dalku mucaarad badana oo ismaqiiqa badana oo mahmahleeyo badana oo maal doono badana gabar baan u dhiibay wala gabay dheer maba fiirinayaan dalka marka waxa weeye arrimaha Soomaaliya ku socdo tarhiibka iyo rafaadka waa wadan raba in la qasho baanteen Etoobiyana waa hore bay gashay dalkan deetan iyo labadii markii ay guursaday deetan iyo labadii bay guursaday afyar ma ahayd dhalinyarada islaataan hay waxaan tagay magaalada la Kalisoor la yiraahdo ilaahay wuxuu og yahay Etoobiyaan kolay wata baa lagu soorahay waa nin muslina la lahaa muslim weeye ninka kan baarku soo socda ninkan wixii oo dhan waa kas waa isku dardaray soo jeedin Ilaahay musta'aan hadda waxaan ku darayaa
biyihii baan ku darahayaa. Liintan waa xaraynahayaa. Markaasay taalaa liinta 10 xabo 10 shilin waa maxaa waaye $1 10 xabo. Waa liintii Soomaaliya laga dhargay. Babaygeedu carrada wiifahayaa. Sisinteedu carraday wiifaysaa. Waxaan ku leeyahay kaas wixii aan qashinka ka diiray ma jeedin. Liinteedu carraday wiifaysaa. Masagadu carraday wiifaysaa. wax ilaahay abuurtay wax alla wixii Soomaaliya halkan baa lagu gadaa. Galeydii wax alla wixii Soomaaliya ka baxay annakana baastada iyo waxaana loo geeyaa cunada dhacda annakana loo geeyaa sababtoo ah geel waxaa la yiri ninkii dhici lahaa maxay dhicin lahaa dhacahayo ragii baa lacag ka doortay wadanka gabdhihiina waxuma ogola yaa walaalayaal waa inay gabdhaha Soomaaliyeed si u noqdaan wax isku mawduuc isku qasqasan baan ka hadlayaa sababtoo ah ma taqaanaa annaka qasan dad qasan baana marka waa in warkuna qasnaado Soomaali ilaahay Naga koob baan ku daraayo biyaha fiirsada biyo badan ku shubay maayo waxaan ku darayaa 2 koob bis jamiila waa lagu darsadaa Hoy قرف waxaan rakibi la'ah geedkii bismillah walkiin saaray marka shiitay koobkaasaan ku shubanayaa ma jeedin indiskanka dukaanka hindigan ka soo gatay $15 cimrigaagu ku haynayaa ama Soomaaliya la aadama cadaad la aadama galisoor la aad balaq jeedin nimcadi waa kaas isku shiitay halkaan mushaali yar baa igu jirta hadda waa kaas warbixin buuxda ka soo bixiya walaalayaal wadankana ha loo duceeyo dalka ha loo duceeyo dalka yaga barwaaqada ka jirta cambaha iyo tufaax iyo babaayga iyo sisinta iyo masagada iyo galeyda iyo digirta iyo caloolayda iyo daylada iyo caanaha geel nimcada ka jirta wadanka ma aragtay barwaaqadaas wadanka loo duceeyo hana la iska dhaafo qabyaalada dadku waa isdhalay meel loo kala socdo male
caawiya berriba meel loo kala socdo ma jirto walaalayaal ay khayr iyo barwaaqa ayay rajaynayaa sidaas iyo macal alif salaama warbixin ka soo bixiya like saar sii gudbiya sii share gareeya nafaqada walaalihiin u sii gudbiya wax kasta aad samaysanaysiin liinta ku darsada mideeda kaleeto liintan maxaa kaloo lagu sameeyaa dadka dandaroonaha gadanaya ma aragteen oo muxuu lacagta ka bixinaya ayadaa jeexanaysa haaf shaqfalaha iska mariya saas jak 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 weligii soo shiirmaysiin walaalayaal taasna aan saaka inii sheego inkastoo aan rabay inaan waqti gaar ah aan inii soo sheego laakiin waqti gaarana waa in kaga sheekaynaya waad jaranaysaa afar cad baad ka dhiganaysaa bac nadiifa bacda hilibkaad ku xiranaysaa wiigiiba 2 jeer marso weligaa noloshaada shiirmaysid laakiin geedka shaqfalaha la marsado dandaroontaha anigu halkaanaan ku bartay weligay ma aqoonin geel iyo ari baan ilaalin jiray hadda dhowaan miyo ka imid maasha allah tabaarak marka reer miyigu ma soo shiiro qoraxda iyo muxuu ahaayey hawadaasa iska fiican intaasna waad ordaysaa ulbaad sidataa marka waxa weeye miyiga lasaas dadku uma shiiro waa iska waxaan ku leeyahay dad iska qalalan waxa weeye toorka marka walaalayaal halkaana waxa weeye dhididka mar waxa weeye hawada isma bedelaysa laakiin hawa waxa weeye xagga hawa naturaala baadiyaha markaan joogay oo geela ilaalin jiray maraad libaax ka celinaysid iyo maraad xareynaysid iyo maraad caana ka lisaysid iyo maraad muxuu ahayd fariisinaysid iyo ma laga sheekayn karo xaradaasaan xoolaha ku ilaalin jiray marka hadda halkaan aan ku bartay kilkilaha geedkaasaa la marsadaa liintaasaa la marsadaa ka daaya kilkisha dandaranta waxaana laga qaadaa kansar skiinka maqaarka kansarka laga qaadaa geedkaas ay dumarka Soomaaliyeed marsadaan laakiin mar dhan baan inii soo daynaya hadii ilaahay idmo sidaas iyo macal alif salaama waa ka sii share gareeya walaalaha waxaan isku dardarana waa inii sheegay geedkii meesha iguma dhagsana maxaa la dhahaa qabanaya kaamarada laakiin waa soo gadanaa hadii ilaahay idmo haddan soo gadanaa sidaas iyo macal alif salaama haye quraacdayda saaka leyd bay noqotay way daahday fashenad bay dhahan Svenska min frukost fashenad hejdå